kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo talaado ah 31 bisha 3 sanadka 2020 idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi qodobada idaacadda iyada ku maqli doontaana waxaa kamid ah dowladda Soomaaliya oo saaka joojisay dugsiyada Quraanka si looga hortago faafidda fayraska corona Puntlandna waxay soo rogtay talaabooyin dheeraad ah oo looga hortagayo cudurka sidee ayaa lagu dhaqan gelinayaa dadka hadda halkan jooga ama wiirta hadda la bixinayay dhammaan sida yihiin ayay u qaadanayeen inta kale hadda soo socotana waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay inay qaataan ciddii aan qaadanna waa la qaadsiinaya insha Allah Somaliland oo lagu baaqay inay sii dayso maxaabiista aan dambiyada waaweyn gelin waxa kale oo aad maqli doontaan waxay ka qaadeen baaritaan yar jimcihii hadda dhaweeday soo waceen waxay ugu yiraahdeen waa positive oo caabuqii waa laga helaa sabtidii ay u waceen waxay dhaheen waxaan ka qaadanaa tasti labaad habeenkii soo sheegeen markii habeenkii soo sheegeen meesha shaqadan waxaan ku cudurku waa laga waayay dhakhtarku uu fasaxo yiri meesha rabtaad aadi kartaa waan in Soomaali ah oo la yiri waad qabtaa cudurka corona balse markii dambe laga waayay qodobadaas iyo kuwa kale oo ciyaarihiina ay ku jiraan ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddan subaxnimo oo uu soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Axmed Badar maasanid Kawthar bangiga adduunka ayaa waxa uu ka digay waxyeelo aan laga hortagi karin oo dhanka dhaqaalaha oo soo wajahaysa dalka bariga Aasiya xilli caalamka farabaan uu ku hayo caabuqa corona saadaal uu soo saaray bangiga ayaa waxaa lagu sheegay in caabuqa corona uu halis weyn ku yahay dalxiiska ganacsiga iyo guud ahaan dhaqaalaha gobolkaasi bangiga adduunka ayaa intaa ku daray in dadadan 24 milyan oo qof ay markaasi naftooda kala baxsan doonaan iyagoo saboolnimo ka cararaya gobolkaasi shirkadda diyaaradaha Mareykanka ee American Airlines ayaa waxay shaaca ka qaaday in 12 bilyan oo dollar oo taageero ay ka dalban doonto dawladda Mareykanka si lacagahaasi gacan ay uga geysato dhibaatada dhaqaale ee markaasi uu sababay caabuqa corona lacagtan ayaa shirkadda loo qoondeeyay isla markaana qayb ka ahayd lacag dhanayd 2 trilyan oo dollarka Mareykanka oo la ansixiyay si loo samata bixiyo dhaqaalaha Mareykanka shirkadda diyaaradaha ee American Airlines ayaa ah shirkadda ugu weyn caalamka marka laga eego dhanka rakaabka isla markaana hesha faa'iidada ugu badan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in kala fogaanshiyaha bulshada lagu badbaadin karo nolosha in ka badan 1 milyan oo Amerikaana waxa uu intaa ku daray in 30 maalmood ee soo socota ay muhiim u tahay in laga adkaado caabuqa corona madaxweynaha oo ka hadlaya shirkiisa jaraa'id maalinlaha ayaa waxa uu sheegay ilaa imika 1 milyan oo Amerikaana baaritaan lagu sameeyay saacado kadib shirkaasi jaraa'id ayaa waxa ay markaasi jaamacadda lagu magacaabo Johns Hopkins ay sheegtay in tirada dhimashada caabuqa corona ay Mareykanka kor u dhaaftay 3,000 oo qof golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxay ansixiyeen qaraaradii ugu horeeyay tan iyo intii la bilaabay in kulamada lagu qabto iyadoo la adeegsanayo qalabka casriga ah ee la iska arko tan iyo intii uu dilaacay caabuqa corona magaalada New York oo xarun u ah qaramada midoobay ayaa ah goobta faraha baan uu ku hayo caabuqa corona isla markaana magaaladaasi waxaa lagu soo rogay talaabooyin looga goleeyahay in lagu xakameeyo cudurkaasi afarta qaraar ee sida aqlabiyada loo ansixiyay ayaa waxaa ka mid ah in waqti kooban la kordhiyo howlaha qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo Darfur waxaa sidoo kale la kordhiyay muddada ay shaqaynayaan kooxda la socodka cunaqabataynta saaran Kuuriyada Waqooyi taasi oo la kordhiyay muddo 1 sano ugu dambeynna shirkadda Facebook ayaa hawada ka saartay dhowr muuqaal oo soo dhigay madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro waxa ayna shirkadda ku dooday in muuqaaladaasi ay sawir xun ka bixinayaan muhiimadda ay leedahay in qofka la karantiilo caabuqa corona awgii shirkadda ayaa intaa ku dartay in muuqaaladani ay meel ka dhac ku yihiin xeerka u degsan shirkaddaasi muuqaalada hawada laga saaray ayuu madaxweynaha Brazil waxa uu ku difaacaya in la soo afjaro tillaabooyinka adag ee la soo rogay isagoo ku dooday inay tahay dadka shaqooyinkooda ay ku laabtaan si dhaqaalaha ay gacan uga geystaan warkii dunidana waa naga intaan dib u celiyo Kawthar aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa Axmed Badar oo inala socodsiinayay wararka caalamka halka aad ka dhageysanaysaan waa BBC
waa tahay subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal aynu ku bilaabnee dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in maanta la xirayo dugsiyada Quraanka Kariimka iyo mawlacyada lagu barto diinta ee ka furan wadanka sababo la xiriira inaanu dalka ku faafin xanuunka COVID-19 oo laga helay 3 qof inkastoo midkood la sheegay inuu ka bogsaday. xayiraadda ayaa la sheegay inay socon doonto 2 toddobaad iyadoo dib loo eegi doono 2 toddobaad kadib haddii la furayo dugsiyada iyo haddii waqti kale lagu darayo. dowladda hore waxay u joojisay waxbarashadii iskuulada iyo jaamacadaha. haddaba go'aankan cusub waxa uu wariyaha BBC-da ee Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan uu ka wareystay wasiirka diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalka Sheekh Nuur Maxamed Xasan. sidaad la socotaan waxaa dunida si xoolo ugu sii faafaya cudurkan coronavirus loo yaqaano COVID-19 wasaaradda awqaafta arrimaha diinta iyadoo mas'uuliyad ay ka saaran tahay qaadashada kaalinteeda ilaalinta badqabka iyo caafimaadka bulshada waxaan soo saarnay qodobo oo muhiim u ah bulshada looga digayo meelaha isku imaatinka iyo dugsiyada quraanka iyo marka waxaan soo saarnay dhowr qodob kow ay kamid tahay laga bilaabo maanta oo Talaado ah 31 bisha 3 2020 waxaan gabi ahaanba fasaxnay dugsiyada barashada quraanka kariimka iyo xarumaha barashada diinta muddo 2 toddobaad ah يعني intaanan iclaaminin oo aanan bulshada Soomaaliyeed aan la wadaagin waxaan kala tashanay culimada Soomaaliyeed macallimiinta marka waxaan u sheegnay khatarta cudurkan uu leeyahay iyo caruurta dugsiyada iskugu imaanaysa maadaama iskuulaadka la soo fasaxay caruurta meel ay aadaan in dugsiyada haddana wada aadeen marka saas darteeda haddana inaan ugu digno qol 4 mitir intaasoo arday marka iskugu imaatay dhibaatada ka imaanaysa waa taqaanaa sidoo kale macallimiinta waxaan faraynaa inay badiyaan akhrinta quraanka sidoo kale waalidiinta ayagana sidoo kale waxaan farnay oo inay ilaaliyaan xuquuqda macallimiinta dugsiyada maadaama dugsiyada la soo xiray wasiir go'aankaasi wuxuu saameynayaa dugsiyada quraanka iyo mawlacyada ku yaala magaalada Muqdisho mise gobolada kale iyo guud ahaan wadanka oo dhan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta wasaaradda awqaafta arrimaha diinta dowladda federaalka Soomaaliya marka go'aankaas waxaan rajeynayaa inuu ka dhaqan galo maamul goboleedyada oo xubnaha ka ah dowladda federaalka kulligood inuu wada saameeyaan rajeynaa inay qaataan macallimiinta insha Allah hadduu Ilaahay raadaan waa rajeynaynaa dabcan sidaasna waxa u samayseen in aad ka hortagtaan inuu dalka ku faafo xanuunka coronavirus laakiin waxaan ognahay wali masaajidii inay furan yihiin oo dadku ay ku cibaadaystaan iyagoo aad u badan marka go'aankiinaas masaajidda maxaad isaga uga reebteen masaajidada annaga waxaan dhahnay dadka inay iska ilaaliyaan meelaha la isku tagaayo masaajidada ka mid ah masaajidadana dee waa xirna ma dhihin laakiin dadka waxaan soo jeedin lahayn dadka Soomaaliyeed ee masaajidada ku dukado inay yani afdal u tahay inay guryahooda ku nagaadaan maadaama dadka meesha iskugu imaanayaan cuduradan la kala qaadi karo inay dhibaato weyn saameynaysa marka waxaan dhahnay soo jeedin haddii macquul tahay in dadka aysan iskugu imaanin marka soo jeedinay noo ahayd marka waxaan rajeynayaa inuusan cudurkaas nagu sii faafin laakiin feejignaan in la muujiyo aayadda quraanka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku yiri yaa ayuha alladina aamanu quduu xidarakum marka in la feejignaado diinteena farayso insha Allah waxaan rajeynaynaa bulshada Soomaaliyeed dad wacigooda aad u fiican yahay waxaan rajeynaynaa hadduu Ilaahay raado inay fariimahaas fulaan insha Allah 2 toddobaad baad u qabateen arrintaas 2 toddobaad haddii ay dhammaato dib miyaa loo furi doonaa dugsiyada quraanka iyo mawlacyada ee diinta lagu barto taas waxaan rajeynaynaa hadduu Ilaahay raado haddii cudurkan saameynta ku yeesha adduunka oo dhan haddana wadankeena weli inkastoo dalka dibadiisa iyo gudaha kulli la wada xiray iyo gudahaba socodka laga xiray hadduu naga baabao insha Allah waa fureynaa oo caruurta dugsiyadoodii iyo mawlacyada sidooda ayaa loo furayaa waa lagu naqanaa haddii sii socoto inuu cudurkan sii faafana waxaa waaye insha Allah waa sii dadka guryahooda inay ku sii nagaadaan mar kale haddana ugu digayna hadduu Ilaahay raado wasiirka diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Sheekh Nuur Maxamed Xasan ayuu kaasi ahaa waxa uu u waramayay wariyaha BBC-da ee Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan iyadoo saaka dowladda Soomaaliya ay joojisay dugsiyada quraanka si looga hortago faafidda fayraska corona waa tahay markana Puntland ayaa amaro cusub oo ku saabsan ka hortagga cudurka COVID-19 soo saartay amaradaasi waxaa ka mid ah gaadiidka dadweynaha inaan 3 qof ka badan lagu raaci karin iyo inaan dadweynuhu isugu imaan meelaha dadku ay ku kulmaan maxamed cabdiraxmaan dhaban cad waa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Axmed Cawil Jaamac ayuu ugu waramay arrimahan cusub xanuunkan aad ayuu ugu faafaya caalamka waxaan ognahay dalal dariska Soomaaliya la ah inay jiraan kaysas laga helo Ethiopia kala kamid tahay
waxaan ognahay dal walba inuu maanta ku dadaalayo inuu xirto soonahaas si uu wixii gudihiisa ku jirana uu maareeyo wixii dabadda ka ana marka idinku waqti aad qabateen miyaa jira annaga waxaanu qabanay waxay ahayd xaaladaha ama tilaabooyinka la qaadaya ayaa kala duwanaa tilaabooyin waxaa jiray shalayba hirgalay oo ay ka mid tahay maxaa la yidhahdaa dadka ka imaanaya meelaha puntland ka baxsan khaasatan dhanka somalilan iyo dhinaca maaragtay dowlad deegaanka soomaaliyeed ee etoobiya in la xiray dadkaas wixii soo gelaya oo ay ardadu ka mid tahayna haddii lahayd ma loo sameeyo nidaam iyo procedure ay ku soo gelayaan iyo baaritaan loogu talagalay iyo dad loo diyaariyo caafimaadka waxaa ka mid a qaadkoo kale oo ka imaanayay dhinaca etoobiya isagana inaan joojinnay sababtoo ah waa meelaha uu xanuunku sida sahlan ama fayrasku u soo raaci kara ayay ka mid tahay marka qodobadaas hore iyo hirgaleen qodobo waxaa jira bisha kowdeedoo kale haddii lahayd malasaan qaadi doona qodobadaas waxaa ka mid a shirki shalay oo madaxweynuhu uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenkii dhammaan joogeen ayay ka mid ahaayeen qodobadii ka soo baxay in dadku meelaha isugu imaanayaan ama maqaaxiyaha oo kale ah in la joojiya arrintaas oo maaragtay dadku isumaatinka meelaha ku soo ururayaan la iska daayo in gaadiidkaarrintaas shaqa ka degan booliiska waa shaqaynaya ciidamadii kala duwanaa amniga ayaa shaqaynaya wacyigelin ayaa socota oo saxaafadoo dhan ka socota waxaa ka mid a baabuurta lagu safraya ee dadweynahoo kale in la joojiyey oo aan ka ahayn baabuurta gaadiidka ay dadka koobani raacayaan basaskoo kale ayaa la joojiyey ama magaalooyinka puntland ha u kala safrayeen ama magaalooyinka dhexdooda ha ka shaqaynayeen marka waxaa naga go'an in aan laba arrimoodba ku dadaalno dadkiina wacyigelin dhammaystiran in loo sameeyo dhinaca kalena in tilaabooyin la qaado dadka arrimahooda lagu hirgelinayo innagu waxaynu ku dadaalayna waxa ka hortag inaan samayno haddii xanuunkan ilaahay baan ka magangallay laakiin uu dalka ku faafo waynu ognaha dalalka waaweynaa hadda dunida ka mid a ciidan baa la adeegsaday dadkana guryaha ayaa lagu xareeyey ma dhici kartaa inaad sidaas samaysaan innaga dadkeenu dad aad u dhagan nugul weeye culimmadii ayaa la hadlaysa oo la engeej gareeyey saxaafaddii ayaa dadkii laga gaaray maamulka dowladdii ayaa la hadlaysa waan ognahay meelaha qaarkood oo dibadaha in soomaalida aad looga cabanaya laakiin waxaa ilaahay mahaddiisa dadka hadda halkan jooga ama wiirtii hadda la bixinayey dhammaan siday yihiin ayay u qaadanayeen inta kale hadda soo socotana waxaan rajaynaynaa haddii ilahay inay qaataan ciddii aan qaadanna waa la qaadsiinaya insha allah waa tahay kaasina waxa uu ahaa maxamed cabdiraxmaan dhabancad wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland wariye axmed cawil jaamac ayuu ugu waramayay amarada cusub ay puntland soo saartay ee ku saabsan ka hortaga fayraska covid-19 weli halkaad naga dhegaysanaysaan waa b b c barnaamijkuna waa barnaamijkii subaxnimo waa tahay qodobo kale ayaa inoo soo socda oo ay ka mid tahay somalilan oo lagu baaqay inay sii dayso maxaabiistan dembiyada waaweyn gelin balse markan walaaca ugu badan ee caalamka maanta ka taagan ayaa ah cudurka covid-19 ee 10,000 kun ee qof ee ku laayay dunida saaka waxaan idiin haynaa sheekada nin Soomaali ah oo baaritaan lagu sameeyey kadib loo sheegay inuu cudurka qabo balse markii dambe laga waayay waa arin dad badan ay ka nixisay dabcan Cabdifataax Maxamed Qaaje oo kalkaaliye caafimaad ka ah dalka Finland ayaan sida ay arintaasi ugu dhacday iga waramay cudurkan aniskuma ogeyn marka waxaan u haystay inuu harkiba caadi yahay marka adile maalintii shaqada tagay maalintii ka horreysay waxay meesha shaqada waxaan ka shaqeeyaa meel xarun caafimaad oo magaalada Helsinki ku taasha marka waxay dhaheen hadii xoogaa harkiba sikahay shaqaalaha qaar ka midana waan baaraynaa marka sida awadeed baaritaan aan ku marineynaa marka waxay ka qaadeen baaritaan yar oo baaritaankiisu waa sanka la geliya bahal yar qoryar lagu wareejiyaa sida loo soo qaado ka bacdina baaritaankii wuxuu qaatay wax ka yar adiga 24 saacadood bas maalintii jimcihii hadda dhaweeday soo waceen waxay ugu yiraahdeen waa positive oo caabuqii waa laga helay marka maxaa dareentay markii lagu yiri fayraska corona ayaa laga helay wallahi hadda mar hada fiirisid waxaan dareemay hadda cabsidaas way iska wada jirtay laakiin waxaan dareemay xoogaa walwal waan dareemay inkastoo arrinka ugu badan oo aan dareemay ka mid tahay in aan ka xanaaqay maalmo badan aan waxaan u tagay dhakhtarka waxaan ku yiri niyo bahalkaas la iga baaro marka waxay dhaheen calaamadihiisa ma lihid marka dad badan oo waayeela joogo baaritaanka dad badan ka horeeya marka iska sug laakiin wallahi walwalka ugu badan aan dareemay nafsadeeda maysan ahayn sababtoo xoogaa cudurka waa la socday runtii arrintan waa arrin naxdinteeda leh marka sidee haddana lagu ogaaday inaad ka fiyowdahay tastigii hore waxaa laga qaaday arbacada laga qaaday marka way soo waceen waxay dhaheen xanuunkan hadda ku haya goorma dareemaysay oo u sheegay waxaan ku yiri ilaa 12 bari argaba caadiini waxyaan u haystay marka waxay xisaabiyeen waxay dhaheen 14 maalmood uu ku hayaa sabtidii ay waceen waxay dhaheen waxaan ka qaadanaa tasti labaad oo ah mid degdeg ah oo si degdeg aan ku baarayna sababtoo faylku uu badan yahay adiga 24 saacadood maqaanaada maaragtay baaritaanka sida wadeed mid kale iga qaadeen sabtigii
waxay igu soo jawaabeen 10 saacadood gudahood. habeenkii ii soo sheegeen markii habeenkii ii soo sheegeen meesha shaqadan waxaan ku cudurku waa laga waayay. dhakhtarku uu fasaxo yiri meesha rabtaad aadi kartaa. marka waxay dhaheen shaqa la'aan haysabe bari shaqada ma soo geli kartaa. sidaa weeyay shaqadeedan ku laabtay. marka sidaad ii sheegtayba baaritaan labaad ayaa lagugu sameeyey waxaana la ogaaday inaadan cudur ka qabin. marka taasi soo shaki ma gelin karto hanaanka baaritaan ee Finland? taa ma sheegi karo, laakiin haddaad fiirisidaan markay dhaheen cudurka waa ka helnay, waxaan baaritaan wada geliyey dhammaan faalmiga oo dhan. weliba xaaskayga waxay umusay isla jimcihii maalintii laysoo sheegay uu bashay, marka iyada cabsi badan uu qabay. marka adiga calaa kulli xaal faalmiga oo dhan waxaan geliyey baaritaan, dhammaantoodna waxaa lasoo dhahay negative. marka lagugu sheegay cudurka ma iskarantiilad ayaad gashay mise qoyskaaga ayaad ku dhex jirtay? cudurkan waa laga helay markii la yidhi gooni aan u baxay, guri kalaan aaday. baaritaankii labaad markii hadda laisoo sheegay inaa negative ahay, markaasa qoyska kusoo laabtay oo iyagana loo soo sheegay inay dhammaantood negative yihiin. sidaad ka dhawaajisayba shaqadaadii ayaa dib ugu laabatay maalin kadib. marka bal ka waran dareenka dadka aad isla shaqaysaan, maxaad kala kulantay? shaqaalaha nidaamka halkan iyo nidaamka waddankeeni hoogaa way kala gedisan yihiin. markuu qof ama dib ku dhaco ama tan oo kala timaado, dhammaan shaqaalaha looma wada sheego inuu qofkaas yahay. waxa aan u sheegay keliya ninka shaqaalaha haysta kor ka haysta. marka sidaa awadeed inta meeshaas ogeed shaqaalaha waxaa ku jiray wiil oo dhalinyaro Soomaali oo wada shaqeyno aan u sheegay. labada kaliya ka warhayay iyo ninka meesha haysta, laakiin dadka kale shaqaalaha looma wada sheegin. waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan uga sheego hada wixii Ilaahay keeno iska qadaran yihiin. cudurkan corona dee cabsidiisu way badan tahay, waa laga warhayaa. laakiin waxaa muhiim ah inaynu isku qarin oo dadka qofkii qabaa uu u sheego bulshada Soomaaliyeed ee kala suusan cudurkan ugu dhex faafin. tusaale ahaan maalmihii anigaan isku soo dareemayay hargabkan, nafsadeeda waxaan geliyey mataqaanaa guriga inaan iska joogo. maalmihii hore aan lagu soo sheeginba. marka dad badan oo Soomaaliya aan iswaxnay oo magaalada dhex wareegayo, calaamadiha aan lahaa anigu waqtigaas hadda la hagaajiro magaalada si caadi u shaqeysanayo dhahay markay aad la hadaysid dhahaya waxaan qabnaa hargab. marka dadka Soomaalida waxaan u sheegayaa leeyahay waxaa habboon in qof walba gurigiisa ku jiro intuu ka xaqiiqsanayo cudurkan inuu isagii yahay iyo inuusan hayn. waa hagaagkaasi waxa uu ahaa Cabdifataax Maxamed Qaaje oo kalkaaliye caafimaad ka ah dalka Finland. waxaana uu yahay waa wiil Soomaaliya dabcan oo la yiri waad qabtaa cudurka corona balse markii dambe laga waayay. Facebook aan qodobkaas dhageystayaasha fursada siiyo. Falastiin Khaliif Yuusuf Bifeye oo joogta Muqdisho waxay leedahay ninka Soomaaliga ah ee lagu yiri waxaad qabtaa cudurka corona deedna laga waayay waxay muujinaysaa cabsida iyo walaaca laga qabo fayraska safmarka ah ee dunida simay. xamdi muuse saalax oo baran ka soo qortay iyadana waxa ay leedahay ninkaasi Soomaaliga ah ee looga shakiyay cudurka coronavirus waxay muujinaysaa ama uu muujinayaa cabsida badan ee laga qabo cudurkaas. qofka hadduu qufaco xataa waxaa la moodayaa inuu qabo xanuunkaas. weliba dadka qurbaha ka yimi ayaa aad looga shakinayaa. qofka laga shakiyeyna yaan u arkin ayay leedahay in la bartilmaameedsanayo, balse ha u arko in taxadar ahaan loo baarayo. waa tahay aad bay u mahadsan yihiin. waa qaar ka mid ah dhegeystayaasha BBC-da ee Facebook oo qodobkaasi ra'yigooda Facebook inoogu soo gudbiyey. waa tahay markana tan iyo markii uu sii fiday fayraskan corona waxaa cabsi laga muujiyey in xanuunkaasi uu ku baahi karo meelaha dadka isugu yimaadaan ama ay dad badanba inta badan ay ku kulmaan. taas ayaa keentay in la fasaxo waxbarashadii islamar ahaantaana dadka looga digo tegidda meelaha lagu badan yahay. waxaase weli meelo badan oo dunida ah cabsi gaar ah laga muujiyey xabsiyada ay ku jiraan kumanaanka qof ee aana haysan dhul ay ku kala fogaadaan. Macahadka Horizon oo ka dhisan magaalada Hargeysa ayaa si ay arintaasi ay ugu baraarujiyaan madaxda jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland waxay ugu baaqeen madaxweyne Muuse Biixi in la cafiyo maxaabiista qaarkood. haddaba waxa baaqa ay soo saareen iyo sharci ahaan hawshan aanu ka wareysanay gudoomiyaha macahadkaas Idris Cabdi Maxamed oo u waramay Cabdishakuur Cabdullaahi Casoowe. waxaanu soo saarnay baaqaas oo nuxurkiisu ahaa inaanu madaxweynaha iyo cidda kale khusayso ugu baaqno si looga taxadiro cudurkan iyo xaaladda maxaabiista ku jirta xabsiyada Somaliland inuu qaadaan mas'uuliyiinta madaxweynaha uu ka mid yahay tallaabo degdeg ah si looga hortago loona yareeyo khatarta caabuqani uu ku yeelan karo maxaabiista taasoo haddii uu xanuunsado qof ka mid ah maxaabiista ku jirta xabsiyada iyo saldhigyada Somaliland
ay saamayn doonaan dhammaan saraakiisha booliiska iyo ciidanka asluubta iyo dadka kale ee helada ah ee soo booqanaya maxaabiista. maxaabiista aad leedihiin ha la sii daayo marka waa kuwee? maxaabiista marka la eegayo dhanka sharciga laba loo qaybiyaa, maxaabiista dembigoodu culus yihiin iyo maxaabiista dembigoodu fudud yihiin. marka madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay inuu cafiyo maxaabiista dembiyadoodu fudud yihiin oo dhan. waxaa kaloo maxaabiista lagu sii dayn karaa damaanad ama waxa loo yaqaano sii dayn kumeel gaadh ah. saa daraaddeed maadaama dee khatartani ay saamayn culus ku yeelan karta maxaabiista ayaanu madaxweynaha ugu baaqnay inuu saa sameeyo. somalilan weli ma jiro kiis lagu dhawaaqay oo coronavirus ah inuu halkaas ka jiro, marka soo laysma dhihi karo waa degdegaysaan haddaad tidhaahdaan maxaabiista ha la sii daayo hadda? maya walaal, ma degdegayno. adduunka oo dhan caabuqani waa mid ku faafaya. tusaale ahaan oo kale Soomaaliya iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo Somaliland daris yihiinba caabuqan waa laga helay waana lagu dhawaaqay. saa daraaddeed madaxweynaha Somaliland isagoo taa ka taxadiraya wuxuu qaaday tallaabooyin badan oo ay ka mid yihiin iskuuladii in la fasaxo, in dadka loogu baaqo goobaha magaranaysa la isku imaado inaan la isugu imanin. tallaabadaas uunbay tanna ka mid tahay in maxaabiistii degdeg loo sii daayo si aan caabuqani uga dhex dilaacin xabsiyada iyo saldhigyada Somaliland. marka laga soo tago baaqan aad shaaciseen ee aad soo dhex dhigteen warbaahinta iyo bulshada, ma isku daydeen inaad madaxweynaha si gaara ula kulantaan oo aad si hoose arrintan uga dhaadhicisaan? walaal, arrintan miidiyahana waan u marinay, haddana waan u marinaynaa si toosana waa mas-uuliyiinta iyo cidda ay khusayso baaqa aanu dirnay dokumentkaasi waa u gudbinay iyadoo magaranaysaa qoraal ah ayaan u gudbinay oo xafiisyadooda u gudbinay. imikana hawadaan u marina waan ugu celinaa mar labaad iyo mar saddexaadba in si taxadar leh oo ugu dhaqsaha badan maxaabiista xorriyadooda loogu celiyo. madaxweynaha oo leh awoodana waxaanu ka codsanaynaa inuu saamaxo maxaabiista ku jirta saldhigyada iyo xabsiyada Somaliland. idinma suurtagelin Soomaha inaad si hoose madaxweynaha ula xiriirtaan? walaal, taasi nooma suuragelin, laakiin miidiyaha iyabaan u marinay iyo cidda kale ay khusayso ama ha noqoto wasaaradihii iyo institutionskii garsoorka ay khusaysayba ayaan u marinay. insha Allah waxaan rajaynaynaa inaynu hawshaas waxay ka soo bixi doonaan degdega insha Allah. waa tahay kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha Machadka Horizon ee Hargeysa Idriis Cabdi Maxamed, wuxuuna u waramayay Cabdishakuur Cabdulaahi Casoowe. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 7:00 aroornimo iyo qadar 23 daqiiqo. halkani waa BBC. waa hagaag wararkii cayaaraha ee noo soo socda, balse markan shacabka isaga kala gudba magaalooyinka Jigjiga iyo Wajaale ayaa baryahan ka cabanayay dhibaato ay kala kulmaan goobta kontaroolka xuduudda, gaar ahaan degmada Qaran. Itoobiya ayaa dhawaan ku dhawaaqday inay xirtay xuduudeeda dhulka si ay ula tacaasho cudurka COVID-19 ee sida ba'an u faafaya. xafiiska ganacsiga deegaanka Soomaalida oo ka mid ah xafiisyada u xil saaran dabagalka xuduudaha la xiray ayaan wax ka weydiinay cabashada ay sheegteen shacabkaasi. wasiir ku-xigeenka xafiiska ganacsiga dowlad deegaanka Soomaalida Kadiir Cabdiraxmaan Maxamed ayaa arrimahaasi ugu waramay wariyahayaga Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. waxaa jirtay qorshe guud oo xuduudaha dalka oo dhan lagu xidhayay. deegaankuna markaad eegto waa deegaan aad u ballaaran, waa deegaanka ugu ballaaran dalka Itoobiya. waxaan xuduud la leenahay ilaa iyo muxuu ahaa 3 wadan. wadanka kale ee Eritrea marka lasoo dhaafo canfarta deegaanka Soomaalida lasoo dhex maraa. marka deegaanku Djibouti, Soomaaliya iyo Kenya xuduud buu la leeyahay. marka waa deegaan aad u ballaaran marka loo eego deegaanada kale ee dalka. marka qorshahan xuduud xidhiddu kolley qaabna u hirgalay qaabna uma hirgelin baad moodaa. waxaad ula jeedaa marka qaab uma hirgelin? kolley maadaama deegaankii ballaaran yahay, kolley dowladii iyo dowladda federaalka iyo deegaanku muxuu ahaa waxay ka sameeyeen xarun dadka lagu kaydiyo oo lagu martadka soo geliyo xagga Djibouti ka imanayo kale dhinacan Wajaale, Doolacado iyo Mooyaale. haddana iyada saas tahay xuduudii intaa un ma aha. xuduudii aad u ballaaran tahay, waa ilaa Kenya oo kale ilaa iyo wax ka badan 400 oo kilomitir ka badan xuduud leedahay deegaan ahaan. Soomaaliya say u dhashayba Djibouti oo kale marka waxa weeyeen taas waxay keenaysaa in xuduudda ayna toos u wada xidhnaanin oo meelaha customs ay ku yaalaan kaliya ururka la saaro meelihii kale ayna deemartay ay adkaanayso in la wada xidho. waxaa dhibaato laga soo sheegayaa xadka Wajaale, bal nooga waran oo isu socodka shacabka deegaanka Soomaalida iyo waliba shacabka dhinaca Somaliland oo sida magaalo cad oo kale in dadku ay ku go'doonsan yihiin baa la sheegayaa maadaama la xidhay. waxa weeye horta sidii imika ka hor lagu sheegayba waxaa jirta baaq waxa ra'iisul wasaaraha dalku sheegay oo ah in maaragtay si guud loo xidhay xuduudaha, balse laakiin wixii miciishadii waxa beesiga in maaragtay socodkeedu caadi ahaanayaan.
iyo dadka ay muhiimka tahay waxaan ka ganacsanaya. Marka waxaa jirtay deegaanka Soomaalidu kolley dhanka Basaale waxaa jirta muxuu ahaa meel lagu baadho markii horeba jirtay oo dadka lagu baadhi jiray. Iminka maadaama xanuunkan uu yimid waxaa jirta in xogaa la sii yar adkeeyay laakiinse weli wax saas ma jiraan. Marka waxaa dhacday wajaalo kale dadku cabasho way sheegayaan laakiin tii waxaad moodaa in muxuu ahaa maanta halkeedii la gaaray. Marka kolley deegaanka Soomaalida intii hawshan bilaabatayba waxaa la sameeyay steering committee ka kooban 12 xafiisyada isla qaarka hadda u taaban doonta arrintani. Marka taas way jirtaa cabashadaasi laakiin cabashadii waxay mudaan beritoona ayna dhibaatadaas soo noqon doona hadii la yidhaahdo. Marka xuduudda la xidhayo isu socodka gaadiidka ha ahaadaan kuwa gobolada isaga goosha deegaanka gudihiisa iyo kuwa xadka ka tallaabayaba saameyn intee lag ayay u geysanaysaa? kolley saameynteeda uu yeelanayaa oo dee waxaa jirtay muxuu ahaa dhanka Somaliland iyaga laftigoodu dhinaca way xidheen. Dhankan kale ee dowlad deegaanka Soomaalida waxaa jirtay muxuu ahaa xuduudahan kale ee Kenya oo kale xagga Dolow deegaanka kale leeyahay Jubaland oo kale Mooyaale inahaasoo dhanba waxaa jirta dhanka kale laftigooda wadanada kale laftigooda iyaga laftigooda dadaalo badan xuduudaha ku xidhayaan bigay. Marka taas kolley saameynteeda way yeelanaysaa oo gaadiidka sidii hore uu kala gooshayay kolley uu ka yaraanaya tiradu way ka yaraanaysaa. Taasna maaragtay saameyn bay ku yeelan kartaa dhanka maciishada oo kale. Taas markaa waxaa jirta muxuu ahaa kolley ilaa imika si official gawaarida wada maciishada oo kale sida sharciga uga soo baxday Djibouti oo kale Somaliland ama meelaha kaleba waxaad moodaa in soo galayaan laakiin maadaama ay culays xaggan xuduudaha uu jiro labada dhinacba taas waxay ku yeelan kartaa saameyn isu kala gooshkii maartay gaadiidkii dadkaba. xuduud dheer ayuu deegaanka Soomaalida iyo waliba la leeyahay wadamada dariskada Soomaaliya Djibouti Kenya sidoo ka dhawaajisayba. Marka ka deegaan ahaan iyo ka dowlad ahaanba maxaa marka idin qorsheysan oo sida aad u kontrooshaan marka cudurka maadaama uu ka soo gudbi karo dhinaca xadka wadamada aad la wadaagtaan? Horta waxaa jirtay xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalidu dadaalo dheeri ayuu sameeyay. Waxaa jirtay inuu ka furay xarumo meelahan xuduudaha sida Dawlo oo kale Djibouti maartay xuduudda kale leenahay Mooyaale oo kale Doolacado iyo muxuu ahaa Wajaale wadaan xarumood baa laga furay xuduudaha aan la leenahay wadamada dariska sida Kenya Soomaaliya iyo Djibouti. shacabka degan deegaanka Soomaalida iyo shacabka sidoo kale Djibouti Soomaaliya iyo Kenya degan waa dad Soomaaliya oo haddana wada dhashay oo kala maarin isu socodkoodan uu badan yahay. Marka sideed ku kala reebi kartaan ama waad ku xakameyn kartaan isu socodka shacabkaasi? Waxaa weeye kolley labada dhinac marka imika anigu halkan Wajaale oo kale ayaan muxuu ahaa kolley aan soo arkay labada dhinac waxaa joogta muxuu ahaa xirfadlayaal caafimaad oo dadka sii gooshaya iyo dadka ka soo gudbaya kuwa sii gudbayaba waa la baarayaa. Marka taas kolley dadaalkeeda ay la qaadanayaan laakiin maadaama dadkii dadka la dhigi karaa ayna ahayn waxaad moodaa wax taas oo saameynayna ku yeelan oo ayna muxuu ahaa toos xuduudii ayna u xirmin laakiinse kolley waa la baarayaa labada dhinacba waxa ka soo gudbaya waxa ka sii gudbayaba. wasiir ku-xigeenka xafiiska ganacsiga dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Kadir Cabdiraxmaan Maxamed ayuu ahaa. Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayuu u warramayay ciyaarihiin haddii aan eegno ciyaartooy hore iyo tababare Chris Sutton ayaa sheegay inay doqonnimo tahay haddii Harry Kane uu ka tegi waayo kooxda Tottenham waa haddii mar uu dalab ka helo kooxaha Liverpool iyo Man City. Kane oo 26 sano jir ah wuxuu sheegay inuu ka tegi doono kooxda Spurs haddii ay horumar sameyn wayso maadaama uu doonayo inuu koobab ku guuleysto. idaacaddeenii subaxnimona waa naga inta